موضوع قلبت عن جيدين أيوه يمد كصاص عضو بشان ديسمبر هدو إلهي نفط يرتا إيد دايا عن وقت لقلي والله موضوع ومتعناه إسسارا موضوع عنكو واد قلبت وحنقول شيكين آيا رقم ماذا أما عادوين كأي وذاقان داد كان الله سامين تقوله رايت طبعا السنة واحد برتي إلى ما أنت داكو شيكينيس أنت طبعا كاسر وحبا إسكام كابدل مشاركة وحبا إسكام بدل قفكي هيدو برشد وقد حجبتي سيدو كل وحبا إسكام بدلين ونس مركا وحسكا بدلي كنا وحواي ومركا قفك آتهاي أو حكو درتي واي ورمالي فهم عليك لبن نمبا هاد كور waxa la yiri aad u sharaftamay marka nimba shirkad ka shaqeynay labadoodu marka shirkadda ka shaqeynay laakiin nimba soo horiyay labadoodu marka waxay u shaqeeyaan company soo saara alwaxyada waaweynka ah oo guryaha lagu dhis ayay soo saaraan nimba markii hore company-ga uu qaatay marka ninkan duurku galaa wuxuu soo jaraa marka geedaha waaweyn salkoodu soo jara si alwaxyada looga sameeyo 5 sano oo isku xigtuu shirkadda u shaqeynay 5 sano wax soo saarkiisu wax yar xataa kor uma dhaqaaq isla mushaarkiisina sidii buu ah company-ga nin cusub qaatay isla shaqada ninka uu hayo kala loo qaata marka inuu asna duur ka galo geedahana soo jaro ninka sanad inta la gaarin ba kii 5 sano joogo waa ka mushaar bad ilaa wax kale uga mushaar badane wax soo saarkii uga dheereeyay ninka inta geed uu keeno maruu ka dheereeyo kana 5 sano meesha jooga maalinka dambe inta la yaabo wuxuu yiri ninkan cirka laga soo riday xagee ka yimid waa 5 sano joogta waxba iskama ka bedelin hadduu yimid mushaar badan baa la siiyaa geedo badan waa jiraa xagee wax iska qaban laayeen asagii uu soo dhawaado wuxuu yirniyo anigu 5 sano halkan joogaa waxna iskama kay bedeline bal adiguna sirtaada ii sheeg hadda dhow baa timid kaas yirniyo su'aal baan ku weydiinayaa anigu wuxuu yirniyo faaskaas aan geeda ku jira adiguna maxaa ku jirtaa isla kaas oo kale aan ku jiraa weey markaas yiri goorma kugu dambeysay in afayso wuxuu yiri waasa u soo gado yiri waasa u soo gado yiri waasa u soo gaday miyaa haa يوحنا دقن كاسملي صبح كسوحير مركان صوب حي فاسكي وحيرا صوب فيستاوي مرك أديكو أنت هل جيت جري سانو اللي جيت عن جري كراوي هل كمل فهم سانو ريزن ككلية مرك عن كاجت نيري وح كلامه هني فاسكي جا كاجا كاف بدن واي صلى الله مبارك حدادن وح اسكت درين dad shaqaalada ay mushaarkaaga waxba isku madari doonaan waxba isku madari doon statuskaaga ama heerka dadka aan la nooshahay meeshaas ay ka joogtina sidoo kale waxba isku madari doonaan bal asaga ka daba imaan doono lagana yaabo inuu ku dhaafo meel qaar maaritaan nin dhalinyaro meel agaasimo ka oo leh this my former teacher maaritaan macallinkii iskuulkii uu macallinkii wali dhigaya علمت خير الله سوى دلقات واي لكن معلم كان سوى حلقة يابا هدو سمين لها نفس هدو سمين لها أسجل إنه كل أكل هذا لقى يابا أردي نسوى حساب برنا وأجاسي موا ملبو حلقة يابا وحكية وريتها ميل فهمتين وقتي هذا نجونا مركز صور كوابنا كبحينه واسده وأدوية كسرعة very fast هاي وحمانتو ديسمبر 2020 نو شقيناي ديسمبر 2023 waxa laga yaabaa noo shaqeyn baa laga yaabaa yes wixii dhanba saas isku bedelaay dhageyso marka see kula socon kartaa marka waxa kula socon kartaa inaad samaysid daily progress hadii kale wad dhaxaliisane si joogtaa inaad wax isugu darto si joogtaa inaad isku hormariso si joogtaa aqligaaga gradkaaga mindsetkaaga xirfadahaaga aqoontaada inaad wax ugu darto waa very important dadkii adduunyada dhaqaalaha ku waalayay oo ayagoo shakhsiyaada lacagahoodu waalida ay haayeen ba waxa lagu leeyahay si joogtaa ay wax u sameeyaan nafdis hada noloshaada hadda bilowtaa xagee joogtaa marka bilaa calaykum
fiir shay marka war ma la fahmo halka waxaan idin ka rabaa natiijooyinku waxay iska bedelayaan marka annagu aan isbedel sameeyno annaguna isbedel waxaan ku sameyn karnaa nafteena inaan dhisno aqoonteena aan wax ku darno halka wasalahayna sooma marka self development waa very important sheekayra idin sheegaya hadda ka horna waa sheegay waa ku celinaa laakiin yani hadda 2023 baa noo dhalanaysa sooma 2030 hadduu ilaahay ku gaarsiiyo sheekada nuxurkeedii baan soo qabanayaa 2030 xagee rabta horta inaan ku soo dhacdo horta waa su'aal sooma hadduu ilaahay caafimaad iyo cimri labadaba ku siiyo 2030 maxaa lagaaga tashanaya yes arrin marka maanta aad ka fikiri karto ma la fahmo halka shayga kaliya marka waxa waaye aad maalinka ku xallin karto waxa waaye inaad maanta ismaal geliso markasan ogaada maanta haddaad naftaada maal gashato laazim bari qurux badan oo waxa ku iimaanaysa waxa waaye yani aad u carfays maanta laakiin haddaadan ismaal gelin oo naf dhis aadan samayn maanta aad joogtid iyo berida soo socota waxba iskama bedelayaan farq uma dhaxeynaayo yes the next 10 years waxay qurxoonaan karaan marka maanta u diyaar garowdo the next year wuxuu wanaagsanaan karaa marka maanta u diyaar garowdo waranta misal fahmina that's another point waa ku soconaynaa marka qodobada sidoo kale waxyaabaha caadooyinka iyo dhaqamada ay leeyihiin dadka nolosha saamaynta kula waxa ka jira oo aan aad u soo kokoobayo waxa la yiraahdaa dadka inta badan nolosha saamaynta ku leh waxay waqti la qaataan oo ay la shirkoobaan dadka ayaga ka saamaynta badan very important point yes qad maqashana waxa la yiraahdaa qofku waa shanta qof ee waqtiga ugu badan oo la qaataa la yiraahdaa shan qof oo fuqaraa hadda la sheekaysato u badi kan lixaad aan noqon shan hodan ah hadda la sheekaysato waqti la qaadato oo kooxdooda ka mid noqotana u dhawow u badi kan lixaad aan noqon ma ila fahmaysaa halka maxaa ka faa'iideysaa marka dadka adiga ka saamaynta badan ama ka horeeyay inaad waqti la qaadato maxaad ka faa'iideysaa yes waxba ka baranay alma qaar fiiri niyad jab ku soo wajahaya culeysya ku soo wajahaya jidgooya imaanaysa yes laakiin marka role model kaaga marka aragtid ama role models kaaga marka daawatid they can inspire you boorku iska jafay yes marka iska dhaafa maanta fiiri xaliir qof hadaa rabtiin ogaatid waxa la fiiriyaa qofka uu u dhow yahay la fiiriyaa sheekadu taa maanta way dhaaftay qofka dadka kuugu dhow saamaynta uu kugu leeyahay maanta waxa ka ag dhow baa la leeyahay qofku asaga uu saaxiibka leeyahay dhalinyarada markay sheekaysana waa aragtaan Soomaa marar qaar ayagoo leh nin saaxiibkaya waa aragtaan no these stories can impact your life asaga ma waa saaxiibkiis waay marka qofkii dadka kugu dhow xitaa maanta waa laga gudbaaya noocu yahay bay u badan tahay adiguna inaad shaatigiisa xirato marka fiiri haddaad ku dhex jirto dad noloshaba hami aan ka lahayn u badi adiguna waad raacaysaa laakiin dad haan ku nool oo hami leh oo meel u socda oo just waqtigooda ka faa'iideysanaya haddaad dhex gasho laazim way ku saameynayaan please dadka waxaa la rabaa saamaynta leh oo lagu dayan karo wadaday mareen haddaad martid aad isdhihi kartid guula xaqiijin kartaa dadka iyaga ha u dayma la'aan weliga inaad waqti la qaadato sabab you can learn from them waxbaad ka baran kartaa intaa ma ila fahamsaan ku iska caadiga haddaad la sheekaysatid fikirkaaga iyo maankaaguba qof caadiga ku soo baxaya dad hankoodu uu sareeyo oo luqaday ku hadlaayeen xitaa ay cajiib tahay haddaad waqti la qaadatana of course wixii xitaa waa jilaysaa u dhawaanaysaa haddaadan xitaa qofkaasoo kale aadan noqon marka
دائما اللي يقفك وقف شنطة قفة وقتك أقول أو لقاته that top elite influential كود ذال إناد رفيق للنقط كود ذال إناد وحكبرت كود ذال صاحب بدو إنا كدقتو كتلا يتصال قادت ورنت مثلا فاهمنا لو قضبا نهرتين وانا بوبسينا يا وقت جينا وحنا ملينا واو اسكا جبجبه واي qodobada u dambeeyaan ku soo gabagabeynaa waxa waaye caadooyinka ama dhaqamada ay wadaagaan dadka nolosha saameynta kula waxa kamid ah la yiraahdaa waxay diiradda saaraan baa la yiraahdaa waxa passion-kooda passion wana qanamo passion waxa la yiraahdaa waxa qofka bini aadamka uu aad u jecel yahay shaqo haday tahay waxbarasho haday tahay wax la qabanayo haday tahay and every single one has a passion qof walbana wuxuu leeyahay wax uu markuu qabanayo uu dadka uga fiican yahay ayaa jira laazim waxaas marka we can call it passion or talent labada waa la dhihi karaa marka qaacido yar waxa jirta loo yaqaano talent ama passion waa hal mid plus investment ka daataan ka hadla Soomaaliya yes labadaas oo la isku daray waxay la mid yihiin baa la yiraahdaa ereygan hal maraan ku dhawaaqa waa iga daba dhaysaan are you ready super power aye yes waxa aad ku fiican tahay ama waxa aad jeceshahay haddaad maal gashato oo naf u hurto waqti geliso waxay u badan tahay in lagaaga dambeeyo war inta meel fahmaysaan duruufay jiro iyo culeysya jiro iyo waxa sadeetay baa sheegay meel walba ka jiraan laakiin waxa la yiraahdaa if there is a will there is a way waxan qofka haday ka go'an yihiin oo uu si dhab u rabo dariiq waxa la yiraahdaa ma waayaa la yiraahdaa hadaysan qofka waxan ka go'nayna cidii haduu ka jabo waxa waaye wuxuu ka dhiganaa cudur daar uu ka dhigan ama qiil uu ka dhiganayo baa la yiraahdaa marka adiguna dhaqamadaas u yeelatid ku dadaala waxyaabaha aad jeceshiin oo is dhigi kartaan nolol baa ka sameyn kartaan saameyn baa ku yeelan kartaan inaad maal gashataan oo aad ku dadaashaan iyana waa muhiim waxaan ku soo gabagabeynayaa qodobka iigu muhiimsan topic-gan aan ku soo xiraayo waxa waaye in xogaa waqtiga ugu yaraa waxa la yiraahdaa dadka inta badan nolosha saameynta ku leh mindset-koodu waa furan yahay baa la yiraahdaa dadku waa labo dad manhajkoodu uu xiran yahay oo waxna aysan u soo gudbin waxna ka dhex bixin iyo dad manhajkoodu furan yahay hadda tusaale hadii lagu weydiiyo feeri hadii si guud su'aashan la idin weydiiyo noloshu siday tahay wax ma laga bedeli karaa qaabka aad uga jawaabaysaan waxay ku xiran tahay your mindset hadii mindset-kaagu furan yahay waxa leedahay yes ha noloshu qaabkeeda wax waa laga bedeli karaa qofka hadduu go'aansado dadaal la yimaado ilaahay subxaanahu wa tacaala abuuray uu tala saarto caqiido saxana la yimaado yes ha life can be changed yes waa goorma waa markaa leedahay wax loo yaqaan growth mindset halka ma la fahmaya yes waa mideeda kale qofku markii manhajkiisa ama mindset-kiisu markuu furan yahay qaacidadaan u isticmaalaa maxay tahay qaacidadu isticmaalo waa tanaa wuxuu aaminsan yahay in halka noloshu uu ku nool yahay wadan hebel tuul hebel magaalo hebel iyo waxa asaga ku dhex nool inay ka muhiimsan yihiin meesha ku nool yahay right ha marka ama Soomaaliya ku noolo ama Canada joog meesha ku nooshahay waxa ka muhiimsan waxa kugu dhex nool warta meel faanteen ha waxaas marka waxa sameyn kartaa manhajkaagu markuu furan yahay ama mindset-kaagu markuu yahay nooca loo yaqaan growth mindset marka hal raba fikirkiina inaad ballaarisaan hadduu Ilaahay yiraahdo oo sheekada aad ka deysaan labada qol iyo barsada aad ka deysaan hadduu Alla idmo qof fiiri inaad taada bas ka fakarto iyo inaad fikir umadeed xambaarto it's a priceless lacag horta kaaga bixayso horta oo hadda fikir haddii uu yiraahdo ma lacag u baahanta may uma baahna fikirka
هل تابقليو هل فوليو وباب كلواي لكن صاحبك اللي بان هدان له فكر كاغا بلاري it's a priceless it's a priceless ما هو واحد عكو حر marka inaad tiraadid aniga ku dhaydo kaliya inaad fikir umadeed xambaarto it's your choice qaybta dambe oo waxaan hadii la yiraahdo hal fuliyo iyo hawlo kale u baahane fikirkaaga inaad ballaarisid waa wax priceless simple adiguna noloshaada waxa bilaabaysaa 2 pm ina bilawda 2 am ina bilawda laga yaabo listen amar dhaqanka isaga hadaa leedahay please and please ku dadaal waqti kooban inaad ka takhalusto wuxuuna kamid yahay dhaqamada qofka dhalinyarada noloshiisa burburin kara simple mar hadaad aragto qoraxdu ka soo orbaxaysaba u badi noloshaada meel mugdi inay ku socoto bad adoo jiifa ama hurdaaya mar haday qoraxdu soo baxdo waa ifafaala muujinaysa mustaqbalkaagu inaanu qurxoonayn yes orita meela fahmaysaa so sidee marka xilli hore ku toosi karaa marka waxaad maqashaan mararka qaar iyadoo la leeyahay qofku tusaale ahaan ama dadka inta badan libinta gaara waxay leeyihiin wax loo yaqaan morning routine sheekadu morning routine kaliya ma ahane even waxay leeyihiin wax loo yaqaan evening routine morning routine waxa la yiraahdaa waxyaabaha qofku early time markuu soo kaca uu sameeyo waxa la yiraahdaa morning routine la yiraahdaa dadka morning routine inay dhaafeen bay waxay leeyihiin evening routine waxa waaye qofku habeenkii intuu san seexan caadooyin uu sameeyo maxay ka caawinayaan xilli hore inuu soo toosay ka caawinayaan so simply waxa ugu muhiimsan oo xilli hore aad ku soo toosi kartid waa adoo xilli hore seexdo it's not possible fairy mararka qaar 8 saacadoo dhafar inta ku gaaray waxa adoo dhalinyaro ku dhafartay anigu ma garanaaye 8 saacadoo dhafar ku gaaray suuragal ma 10 saac ina soo kacday suuragal ma laakiin 3 saac iyo bar kuwa wixii leeyahay macallin 3 saac maxaa ka seexanaa hadayba nolosha noo bilowtaay listen 3 saac laakiin markaa seexatid waa very simple 10 saac ina soo kacdaa iyo bar ama ina soo toosi waa very simple waxaan marka fiiriyaa waxay u baahan yihiin la qabsi iyo adaptation iyo ku adkaysashay u baahan yihiin listen dhageysa marka 3 qodob baan ku soo ururinayaa waxyaabaha qofka xilliga hore ka caawin kara inuu soo tooso waa midda koowaad qofku xilli hore inuu seexdo waa midda labaad oo isla halka ku jirtee marka seexanayso waxa la rabaa jadwal inaad ku seexad habeen 5 saac seexo habeen 2 saac lama rabo jadwal inaad ku seexad marka jadwal ku seexatid jadwal oo ku soo kici kartaa simple waana wax la tijaabiyo marka lama rabo fiiri markay ka qabato lama rabo hadda dhalinyaradu inta badan markay daalaan seexdaan wala yaqaanaa indii markay xanuunaan taleefankii ku daal kuwa qaarna waxa la sheegaa taleefanada markay ka damaanay seexdaan madam wax kale uusan ku soo jeedo malahan taleefan markay damo seexana waa isdhiibaa macnaha meesha seexanaysina it should be clean haddaysan environment-ka duusan ku caawinin badanaa waxay ka mid tahay waxyaabaha qofka bini aadamka ku dhigi kara marka environment nadiifa oo qurux badan mar walba inaad seexatina ku dadaal halka aanoo ka bixin marka waxaa la yiraahdaa dadka successful people-ka waxay leeyihiin adaati sida sheegay morning routine qurux badan morning routine waxa waaye jadwal subaxeed la yiraahdaa tusaale 2 saac intaan la gaarin maxaa samaysaa horta tusaale waxa soo kacday 10 saac ama waxa soo kacday 5tii ba iska dheh 5 iyo 12 iyo 1 saac waa 3 saac meesha ku jirto 3 saac marka si loo fiiriyo aad u badanta maxaa sameynay marka waa 3 saacadood oo qaaliyo waliba fiiriya saacada hore 5 iyo 6 iyo waa saacadaha jawi iska degan yahay meesha joogto xitaa aysan buuq lahayn dadku inta badan ay hurdayaan marka inta badan dadku markay hurdayaan hadaad qaniimaysato waxay u badan tahay waxaysan heli doonin inaad heshay u badan elefantan halkaas yes listen meesha marka waxaan rabaa inaan idin sheego kulli nabiga kaleey salaatu wasalaam oo asxaabtiisa la hadlay wuxuu yiri adduunyadiina idinka iga cilmi badan waa tiyo kale qof kasta duruufihiisa iyo waqtigiisa iyo asaga iska leh
aniga morning routine kayga iyo saaxiibkay liibaan waxa laga yaabaa shaqo inaan isku lahayn baa laga yaabaa isku shaqo maniin isku jadwal isku duruufana maniin marka qofku qof kale iskuma cabiri karo horta halka meel fahmisaan laakiin waxa jira waxyaabo laga sameeyaa tusaale annagu hadda marka shantan soo toosno shaqada u horeysay aan qabanno maxay tahay dad islaamanahay of course inaan waajibka ilaahay subhanahu wa ta'ala uu naga ribay horta inaan soo tukano yes barnaamij saddexaad meelahaas miyuu ama garanayo inspire me markaan ka hadlaynay qofku siduu uga guuleysan karo dib u dhigashada maalinka dhalinyaradii ila joogtay qaar ka mid halkan wajiyadooda uga jeedaay waxyaabihii aan kula dardaarmay waxa ka mid ahayd ku dadaal haddaa rabtid noloshaada inay wax iska bedelaan xilli kasta salaada subax jamaacada inaa haleeshid ku dadaal hadduu ilaahay khayr iyo baraaro iyo deganaan iyo farxad iyo stress la'aan halkaa horta kama horeyso horta intaan meelo fahmisaan kaa waa waxa caamkaa waa salaadii baa tukatay halkaa waa isla soo gelaynaa rag iyo dumar mar waxaa laga yaabaa gabdhuhu inta badan guryaha inay isaga tukadaan waana saasay noqonaysaa salaadii markaa soo tukatid of course juskaaga qur-aanka ka tur adkaartaada iyo wixii maalinkaas aad ku badbaadi lahayd akhriso wixii markaa ka yimaada marka waxyaabaha dadka oo nolosha saameynta ay ku leeyahay ay sameeyaan waxaa ka mid ah they exercise way jimicsadaan yes kuwa waxa laga yaabaa inay yiraahdaan macallin 40 kiilo ah maxaan ka jimicsana this is not yani ma ahan ba jimicsi kaliya ma ina cayilinta miisaan inuu kusaariya kaliya ma waxa la yiraahdaa maskaxda caafimaadka qabto waxay ku dhex jirtaa baa jir caafimaad qaba waxa aan wax ku tahayna waa caafimaadkaaga waa asaga hadaa weysid no one cares you maxaa laga rabaa marka inaad asaga aad u ilaalisaa la rabo waxyaabaha aad ku ilaalin karto maxaa ka mid ah inaad samaysid daily exercise waxa ka badan adiga dhanba fiiri xitaa uma baahnid inaad gym aadi uma baahnid 10 minutes 15 minutes 5 minutes oo regular ama joogtaa hadaa samaysid is enough for you maalinkaagu waa hadalka ciyaalka xaafadde waa kuu shidan yahay xaqiiqo borin ma dareemis caajis ma dareemis sababta xogaa oo soo jimicsatay dhididka yarkaa waas nag marka exercise-ka ka baxdid what's the next inta badan dhaqanka dadka guuleystayaasha ay ku xijiyaan waxa ka mid ah la yiraahdaa they read waxbay akhriyaan la yiraahdaa waxaas qofka wax waajib ku ah noqdaan wax qofka fildigiisa ka baxsan ha noqdaan waxa la yiraahdaa always they read ma ila fahmaysan halkaas yes meesha marka reading ka waa soo wadaayo qodob kale hadduu ilaahay yiraahdo aan rabaa inaan ku faahfaahiyo laakiin mid ogaade ana hadda reading ka waxa laga yaabaa dadku markay maqlaanba inay yiraahdaan 2 saac 3 saac 4 saac maalina waxaas wax weyn waaye laakiin haddaad samayn kartid fiiriya ama haddaad samaysiba maalin kasta intaadan noloshaada bilaabin 10 daqiiqo kaliya haddaa wax akhrisid isbuuci wax weyn baad haysaa bishii wax weyn baad haysaa sanadkiina wax weyn baad haysaa waana 10 daqiiqo kaliya 10 daqiiqana hadda annaga waxay nooga baxdaa social media intaan up and down aan u wadno 10 daqiiqo intaas nooga baxda iyo ka badan oo nooga baxdaa walka meel fahmisaan akhriskaas hadduu ilaahay kuu fuudeeyo maxaa ku xiga qofku inuu ku quraacdo cunno qurux badan oo isku dheeli tiran oo nidaamsan si qofka maalinkiisa uu qurxoonaado ana wada dhakhtar ma ahay yes doctorka halkaa waa noo fadhiya saaxiibo kale oo dhakhaatiirana meesha inay ku jiraan waa laga yaabaa badanaa morningka waxyaabaha aadka looga diga waxaa ka mid ah cunooyinka oo saliiddu ay ku badan tahay waxyaabahaas aada horta looga digaya so iska ilaaliya qof walbiya kolley karaankiisii tabartiisa marka wax yar oo ku support gareynayo maalinkaaga aan kaa qasayn caajis aan kugu abuurayn fit inta haddaa israacisid sallallahu baarik